ما ولا أبيه مسلين ما هنو دواتك ما نسمح أباه وسيس والد كاي أو سميسي أدوات كاي ما نسحب سوق. سود هذا واتي ودرنت دالكي هو هنا يقوليها كريه جري يقوليها بوضاسك برانا قد جري أي عرورتي سي اللي بيس حاس بحر قارتو قلي قفل بأكونا يوسمي أكوامات أنا يو الرأي اللي عكت على الشباب عندك خلنا أي أكوامات هو الرأي ما أنت محكمة أي كسر الموضوع عرورتي سا اللي بيس حاس بالفير بحر كأو عدة قلي بالفير كان بحر حاس ساكين ويلا يقبل يسرتها أي بحر قارتو قلي أكوام أسمي أكوامات عيري وحاول سمينا قرابة أي وحيا إلا العيال ذاك لقى الرؤي أي الوشو يجري أسرع أي أولد حي والموقع من القاسية اللي بعد ما سب بالواحد أو دارنا مركز بحر كعدة قلب الفريق. حسن عثمان ayaa iyaduna laba koonto oo ay ka sameysay mid kamid ah bangiyada waxay qawaaridta lagu aruuriyay 3 milyan 728,399 dollar dhibic 9 senti xasna qaasin aways oo ahayd xaaskii hore ugu dhaxday ayaa sidoo kale sameysay laba koonto oo lacagta qawaaridta lagu aruuriyay dhan tahay 2 milyan 747,208 dollar dhibic 8 senti Aamina Cabdullaahi Abanuur oo xaaska ay hadda wada nool yihiin eedeysane Xasan Cusmaan ayaa sidoo kale waxaa la soo bandhigay hal koonto oo lacagta qawaaridta lagu aruuriyay dhan tahay 113,194 dollar dhibic 5 senti haddaba lacagahaasi waxay ahayd mid si qasab ah loogu aruuriyay ganacsatada Soomaaliyeed iyo shacabka Muqdisho ku nool ayadoo lagu dhibaateynayay bulshada Soomaaliyeed sida uu sharaxayo xeerlaaliye ku xigeen Farxaan Xuseen Maxamed mudane gudoomiye waxa kale uu sameeyay eedeysanuhu koonto lambar 34 waxa uuna koontadaas fundraising ama ururin maaliyadeed ugu sameeyay kooxda argixisada lacagtaas oo cadadkeedu uu leeyahay 5,900,830 dollar eedeysanuhu sidii maadaama bangiyada dalka iyo shuruucda dalkuba bangiyada ay ku waajibinayaan sidaan sheegnay inay maraan habraacyo foomkan ayaa asagana uu ku furtay koontadaas mudane gudoomiye foomkaas waxa ku dhagan sawirkiisa sida laga arki karo ayadana waa macluumaad dhameystiran oo intii ba ku qoran sidoo kale waxa ku dhagan warqadda dhalashada ee dawladda hoose isla koontada uu foomka ku furtay mudane gudoomiye waa koontadan mudane gudoomiye sidaan sheegay 6 bilood ayay furnayd lacagta martayna waa lacag 6 milyan oo dollar ku dhow 6 milyan oo dollar lacag yar ma ah saas daraadeed mudane gudoomiye dadka lacagaha soo dhigaya maadaama ay family ahaayeen wax la yaab leh oo la yaab leh waay in caruurtiisii maanta labadiis xaas oo baxar gali oo maanta wuu biday inay maxkamad ka soo muuqdaan ayagoo dacwo loo haysto bal fiirinka wuxuu sameeyay akooma ayuu sameeyay gabadhiisa akoon ayuu dhibay labadiis xaasna laba akoon ayuu u kala dhibay daal ayuu ahay guriga banaan ayuu daal jiray iyo kuwa dhisanba lacagaha ayuu shabaabka dadka ka qaadaan ayuu akoonkiisa ku aruuri jiray mar qof walba wuxuu sheegay jiray in qaraabo hebel loo aruuro lacag in alaabtan ganacsada ay leeyihiin kadib say usoo wareegtay usoo socotay maanta ayaa familkiisii dhamma xabsi soo geliyay baxar kaliya ay soo ka dambeeyay wax la yaab waaye oo muuqaal sheegareeya ninka odaga maanta wuu qasaaray adiga maxay kordhan ka nin qasaaro waa familkiisii caruurtu wili waxa la yaa gabadhiis waxay leedahay aabe sidaan igay misleen aabe waa ayada waa baariyad aabe iska aaminta laakiin maanta baxarka ay waxita xabsiga ay ku jirtaa maanta iyo maxkamad in la horgeeyo maanta moomtaas in aygaas waxa waa soo jiiday war muuqaal sheegareeya ninka odaga ilmihiisa iyo xaaskiisa maanta xabsi ayuu qortu galay iyo maxkamadba شكرا مغالطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.